السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز يوتيوب channel كان فصل ميديا جروب يعني واحد درسات محمد حسن ومركز حبين تاني ما حد كتقنا ودمada caalamka shakhsiyaad kacanka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wadanka Yemen aan ku bilaabay jamhuuriyadda Yemen ama wadanka Yemen waxa uu xornimadiisa qaatay qayb ka mid ah 1962 sidoo kalena qaybta kale waqooyiga waxay xornimada qaatay 1990 wadanka Yemen waxa uu isu tagay oo isku beeray dhinaca waqooyiga iyo galbeedka 1992 bishii May wadanka Yemen markuu isku tagay waxa uu qaatay calanka astaan midabkiisu yahay madowga cadaanka iyo casaanka ee dhexda kaga jirto xidigta akhtarka sidoo kalena calaamada qaranka ama calaamada astaanta wadanka Yemen waxa uu galayd ku fadhiyo meel akhtara عاصمة ودك اليمن وصنعاء لغة رسمية لقى حلا وعربي كرجين كام دينتي خاص كأهي وسني الشيعة الإسلامي ودك اليمن مدحوني أهري مدحوني كان نقطة وهو عبد الله السلال سلو كان وهو برايم منستر كينتو لحزكون يسقال بقول الساعة سقاشن كي لا يتطوي سقاشن كي sidoo kale madaxweynaha kale ku xigay wuxuu ahaa madaxweynaha dhawaanta inta wadanka Yemen ee Ali Abdullah Salah oo wadanka Yemen haystay intii u dhaxaysay 1978 ilaa 1990 oo xilka laga qaaday 2011 markii uu kacaankii lagu magacaabay guga carbeed ka hortay wadamada Carabta wadanka Yemen area ahaantiisa waxa lagu qiyaasaa 1950 kilomitir square wadanka Yemen dadkiisa tirkoob dhawaan la sameeyay wax lagu qiyaas 7 milyan ana dhaxda 7 milyan iyo 60 sidoo kale iyo 980 waxaan u maleynayaa macluumaad ku saabsan wadanka Yemen in inta ku ekaysiyo waxa soo wadna xalqada kale oo ku saabsan wadanka Yemen bifadlan dadka cusub YouTube channel-ka subscribe si like share aad iyo aad baad u mahadsantahay